laga yaabaa ninka Soomaaliyeed inuu caruuro u arko laakiin ninku gurigiisa markuu joogo waa ilmo weyn waa caruur halkan aad ku caruur ahaataa loogu talagalay sida daraadeed uu nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi Aisha intay dabada u soo yara baxeen buu yiri inakeen baratanne waxaasho inaan yara waa la baratamay markaasay ka dheerays muddo la joogay maalin dambe oo dal safar la joogay buu yiri Aisha maantana waa baratamayna inakeen waa yara marmarsato may waa baratamayna buu yiri ina dhaqaaji waa la baratamay markana Aisha waa yara cuslaat oo ina tiirayda fududayd ma aha sidii hore way iska bedeshay dabeetana uu ka dheereeyay nabigu intuu ka dheereeyay buu waliba yiri tilka bitilka taati uu turbu nabigu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi midkeen baa arki kari lahaa isaga haweenaydiisu intay dabada u yara baxaan inay baratamaan yani waxa laga yaabaa inay suurada ninka Soomaaliga agtiisa taala inay tahay ninnimo la'aan ama waxaan yani dhaqan nin weyn u dhaqmo waa dhaqan nabi anigu waxaan ka warramay waxaan idin misaalka kama bixinayo cid kale tusaale kama bixinayo waa tusaale nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi oo ah bashariyada cidii loo soo diray inuu hago ilaahay baa wuxuu abuuray kuwa jecel subhanahu wa ta'ala sida daraadeed ayuu nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi dhaqama ka muuqanaya muujinaya in guriga kani uu kalgacalkaasi ku dhisnaado sida awgeed buu Aisha maaliku tiri ilaahay rasuulkiisa hooyanka loo dhamidee kunya bay leeyeen ana kunyo Abdullaahi buu ugu yeedhay Imaam Ahmed xadiiskiisa ku tilmaamay bal markuu u yeedhay uu tarxiimin jiray Aisha magaco bad la gooyo magaco in la tuuro in yani magacii haweentu aan la wada dhamayn nus yar inta la sheego inta kalena la iskaga tago kullu dalik waxay sheegaysaa luqadatan iyo qaabkan loo dhaqmayaa inuu yahay qaab mashaacirta la ilaahay Aisha inan yara ya xabashida ciyaaraysa waxay tiri mar rabtaa buu nabigu yiri qoladan ciyaaraysa ina daawato haabay ku tiri tan nabigu isu taago dhinaciisay xaga dambeynta iska soo taagtay ayaan dhabanka u saaray bay leedahay oo maanta ma ka daashay markuu yiraahdaba may baan yiraahdaa anigoo rabay dadku inuu ogaado bay leedahay halka nabiga ka joogo ciyaarna ma rabin waxaan rabay bay leedahay soo nabigu igu jajaban yahay aan agtiisa qiimaha ugu leeyahay in ay dadka kale ogaadaan ama dumar kale inay ogaadaan waxay tilmaamaysaa qadaayadkani ruuxil marax in ay ku jirto inuu nabi Muhammad leeyahay khiyaarukum linisaa'i hadii tirmidhi albani sahih ku tilmaamay oo idin ku fiican waa dumarkooda ugu fiican baabkan waxaad moodaa inaan tilmaamay misaalkii koowaad هذا مفتاح السعادة الزوجية وشركة رياكو نينيا قبل يسكو درصدين شركة الراس مالك هانتيدا الرسمية هيستاني يكون تجارين ينبين له الحب وهلكو كبلا مفتاحها كاني مفاتيح دواء الكبضا بيلاده حيث المامان علماء ديو كمدا التغاضي إن حساب تبضاني تزيد المسافات بعدا إن ليسوا دلقات وحيابا بدن إيش اللي قرقو تكالقع القوو بيرناضو فحنكو سوكوبي يوم قريقا مسلم كاي وقريقا القعيل يسؤور فيو baan ku nool waa guri naxariis iyo muaamaladii fiicneyd ee nusuusta quraanka iyo xadiisku sheegaysa ihsaan iyo isaar iyo wanaag oo soo dhan jira cadaalad iyo raxmo iyo waxa quraanku sheegayo dhan waayo waa meesha la rabo in lagu barbaariyo ubadka bulshada u soo kacaya oo ubadku inuu guriga ka yimaado isagoo yaqaana macna al-hub iyo dadka kalgacalka loo haynayo naxariista cadaaladda dhimirsanaanta afwiga tasaamuxa kullu dhalika nusuusta quraan ee tirada badan la sheegayso ee lagu yiri dadka kala kula dhaqan waxa awla u ah ugu horeeya inaad kula dhaqanto maxay taa nolosha wadaagtaan haweenna waxaan ku soo koobaya iyada nabi Muhammad wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi gabadh baa u timid dabeetana danay lahayd baa ay ka wareysatay markay dhamaysatay wuxuu ku yiri nin ma leedahay haabay saysku tihiin buu yiri arrinkiisa saata waxaanu taag waaye mooyaane wuxuu u baahay uma meel yeela baylaad yani wax kasta in raali galiyaabaan isku daya wuxuu nabigu yiri ku dadaal isaga janniya naartaadii buu nabigu yiri idan haweenayda ninka waxa caanka ah atakabbur bay dhahdaa iyo alkibriya marka wuxuu isleeyahay armaad dad waxay yar samayso lagu yeesayaad hoos u soo dhacday waa uqdatu naqs raga ku jirta bay dhahdaa cagsiga dumarka bay dhahaan waxa ka asala sulukiyaadka lagu yaqaan al-inaad madaxdaygo ninkan dabadabasani badan uu ka arko uu ku guumaysanaya aad wax iska dhicisi laakiin guriga dhabtahay waa gurigan labada midna oo ninkuna markuu guriga joogo isla weyniyo dhan uu ilaabay haweentuna markay gurigeeda joogto taacad dhamaanteed ay la timi ay haweenta waxa laga rabay xadku nabi Muhammad tilmaamay salawaatullaahi wa salaamu alayhi Muaad ibn Jabal markuu Shaam iyo Meelaan ka yimid uu arkay qolo boobabku
boqorkoodii wadaadadoodii u sujuudaysay uu nabiga yidhi adnaanu kuu sujuudno oo isku dayey wuxuu nabigu ku yidhi salawaatu waxaanad samaynaysaa waa maxay qisadii buu u sheegay nabigu wuxuu yidhi haddaan bashar uun fari lahaa inuu bashar u sujuudo bini aadamuun haddaan odhan lahaa bini aadam sujuuddu waa maxay sujuuddu waa meesha muujisa inaad ogoshahay ilaahay inaad addoonkiisii tahay waa waxa muujiya jidhkaaga halka ugu qaalisan ee ugu sarraysa aad haysataa waa wejigaaga aad soo nadiifisay ka dhalaalisay markaad halkaad cagaha ku haysay saarta macnaheedu waa maxay waa ilaah waa isu kaa dhiibay waxaan ogolay inaan addoonkaagii ahay waa calaama lilistislaam waxaa la yidhaha haddii basharuun la odhan lahaa bashar adna madaxa dhulka u dhig haweenkaa la odhan lahaa raggiinna u sujuuda idan haweenayduna cinaadka ha iska dayso ninkuna takaburka ha iska daayo guriguna kalgacalkii maalintii arooska laga olololaahaa lagu dhisayey maalinta xabaasha la qabanayo inuu sidii u jiraabaa loo baahanyay ma gaboobe ha gaboojinina wallahu aclam billahi tawfiiq